بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد يونيفرسال كنت آدي آدم كلام هذا من ورئيس كوبن وكسر سنة أرماس مالمهان حوار ميديها يو تفكر الحديثة قبصدي إن ذاك كده وينه إذا كان أدلة وذاكتين وين كلام هذا من أنت كذب دول سيدي سبا ودول كحمر رجب يعالجاب وبحياة سنة شيء سين أما الشيء ده دولكاس أنا بسريد ودول مبحين فنسين حالة هذا وحنا سيسمع له هذا وحنا ونعفن وحنا وشرح اللي يسلو تلقى السيد هذا بقى وحان كفارنتي أنا وحان سمي ورقد يدوا عملنا أنا كيسين ورجلين يسيس من فرق يا ولحية ورجلين تونا وحي هذا إن جوابها يقشن بجان في السيو شركة eeko xilligaas nadaafada nagala shaqeynaysa goobo ay qashin ka dhigaan kadibna laga sii qaado meel ay idu leeyihiin meel ay ayaga la siinayo meel ay ku nacfinayaan meel ay u seerban u dhisanayaan midna ma ahayn ayay ahayd waliba xilligaasi oo hadda ma qaan warqadii daraad oo maartay afreenka oo akhrinayay waxay ahaaday 12 bisha afraad ayay ahaaday anigu xilka 15 bisha afraadaan wareejiyay warqadii gudoomiyaha degmada xamar jab ee la soo xiganaya iyadana waxa ku qoraaday waxay aaday 22 bisha shanaad ayay ahayd marka warqada tala soo jeedinta gudoomiyaha waa dareemaysaa inay ka dambaysay tayda cid u tala jeedinaya waa markaas maamulka jooga anigu ma joogaba ayay ahayd yaa baxshay yaa dhiibay iyo la dhiibi karaa iyo wala dhiibi karaa duq magaala awoodiisa maxay la agtay wax dawladda wasalaada madax karaa iyo meel nadaafad looga la raadi karaa ay waxa soo idil waa wax kale walaas kama jiro laakiin muhiimadu waxay ahaaday dhulkaani cid bixisay oo siisay shirkadda eeka dhulkaasi wuxuu ahaa maamulkiiga dambeeyay waxay marka in la cadeeyo cid wax bixisay hadii tayda lagu ma amal falinba lamana cuskan soo ma garan gudoomiyaha cusub ay muday dekreeto soo saar uu ku joojinaa dhulka ahlan wasahlan gudoomiyaha xaq uu leeyahay inuu joojiyo ilaa oo wixii uu ka hubiyo xaq uu leeyahay laakiin waxay aaday dukumeentiyadan oo la cuskanayo in miiska la soo wada saaro almiino oo midda cidda wax bixisay iyo cidda kale la kala cadeeyo wax la baxshay la cadeeyo qaabkii waxay la cadeeyo laakiin mujmalad moodaayo mugdi inuu ku jiro moodaa marka mugdigaas weeyaan waxa culayska keenay dadku shakiga galiyay taas ay waxaan rabnaa inaan marka aan ka hadlo محافظ يوم حيمة حلقة هذه أكيد الجنسية وحالة بحشي ممكن حالة بحشي بيشان جنوري لما كل يسديد تمك هي اللي بحيادون كل السيء نمك هي اللي السيء ده وحي هذا ورقد ده سبح لبوسي الناس كلا صار سعره أو حالة عسكنا أي كمين نقط مركز ده جنوري لما كل يسديد تمك حلقة بوقة باللوري أو دتك أي فاب بيدا أي كقاعدين إن دولك بياس اللي برا لا بسنة أيوه وجنوري وحلا بحشنا وحيد الجنوري لما كنا يسديد تمك لما كنا يسديد تمك الجنوري يسجوا على متجوجين مدال قدومي ما هين مركا دامي حلقي أهل جوجي ولا صح حاجنا وحا كدم بيسي حلقي وحلا بحشاك كدم بيسي حلقي ورجين تاتو ساري سعدي موحد أوطر اسمه كده هان دكتان إن دوكان خاطان مسائل لو شقاية أو كده سيدة تصالة دارتنا سيدة دبا دارتنا ما دمام كيجو ريا كري وحي هذا كيلو aniga sideedaba dhul dawladda ay leedahay taakaba Allah ka dhigay oo aan sifo sharci ahayn anigu ku maxad gudbin manaba midda labaad anigu wargelin marka leeyahay iyo siismo farqiya u dhaxay dadkuna fahmaan rabaa xilligaasna ma laba soo qaadinba mana dhaqan gelin mana la fulin anigu xilligan xilka ka dhigay ba ahaadba soo ma garan warqad iga dambaysay ayaa jirta oo dhulka lagu siiyay nimankaas waxay aad marka waxa aan rabnay in la soo xigto waxay ahaaday wixii bixinti siismadi in la soo xigtay nidaamka lagu siiyay cid siisay xal loo siiyay waa wax kale laakiin waxay aad warqadaha miiska la soo saaray la xiganayo waxay aad warqadii dambayso siismada in la soo xigto maadaama la soo xigtay bisha shanaad 2014 la soo xigtay 2017 bisha abril bisha shanaad la soo xigtay waxay aad diiday ka dambayso xataa in la soo xigto maxaa gudoomiyaha xamar jib wuxuu soo jeeshay tala soo jeedinaya kala soo jeedinta marka uu soo jeedinayo aniga inuu soo jeedino ma jirinba maamulkayga ma jirin
sama garan maamulku soo jeedo maamulkan dambe aheedo cidda wax siisay ee nimankaas dhulka tiray hal la siiyo si ay shaqadaas ugu qabtaanna waxay ahayd maamulka iga dambeeyay ayuu ahaa warqadii cadaynayna waan hayaa gacantan ku hayaa haddii loo baado waa la arki karaa waxay ku qoran tahay waa kana ujeedo siin dhul goormay soo baxday waxay soo baxay 11 bishii koobaad 2018 soo baxay 2018 waxaa ku saxiixan gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir howlaha guud ayaa ku saxiixan ninka la yiraahdo mudane aadan sheekh cali fiido ayaa ku saxiixan oo uga wakiilka ah duqa magaalada dhul arrimaha dhulka uga wakiil ahaa ninkaas ayaa siiyey asaana bixiyey marka waxay ahayd wax la rabay in la soo xigto waxay ahayd haddii wax oo la soo xiganayo waxay ahayd in warqadan la soo xigto idaas isba ku qoranta in warqadoo dhamiiska la soo saaro la soo wada xigtana saxay ah haddii la wada xiganayo laakiin intii ugu dambayso wax lagu bixiyay laga boodo kuwa kale oo dami zaman ahaayeen xataa ay sama jirin ba ama wax lagu qabtaaba aysan jirinna in la soo xigto arintaas ayaan aragnaa in qalad meeshaas oo ka jiro waxa aan rabno marka dadka in laga daaweeyana waa qaladkaas warqada sida saxda ah wax loogu bixiyay lagu siiyay waa tanam oo u baahan cid walba inay aragto gudoomiye markuu yimaado markii waxyaabo tashwiish furo ay jiraan wuxuu sameeyaa xaq wuxuu leeyahay inuu xaqiyo ilaa uu ka hubinayo waxaan sida ay yihiin marka joojintu xaq uu leeyahay qalad noo ma arko maxaa yeelay inuu xubiyaa loo baahan maxaa yeelay bulshadii qabsatay wax baa la baxshay wax baa la dhiibay wax baa la iibsaday wax baa bulshada dhexdeeda qabsatay marka xaq uu leeyahay inuu joojiyo laakiin waxa loo baahan wixii in la hubiyo qaabkii lagu bixiyay yaa bixiyay maxaa looga jeedaa sidee waxaan yihiin waxa soo dhan hubseen uu maxay Soomaaliya waxay tiraahdaa hubseeno hal geela la siistaa oo loo baahan marka wixii in la iska hubiyo intaas un baa muhiim ah waxaa laga yaabaa anigu wixii la soo xigtay aniga maba garanayaba waxa ay shacabku ku wareersan yihiin ay dadku wareersanayaan waxay ahayd Yuusuf Madaalo 2017 bishii afaraad lixdeedii xilka laga qaaday in la soo xigto oo shaqo hadda la isku haysto hadda la qabanayo hawsha hadda socoto in la soo xigto waxyaabay dadku leeyahay ka mid ah asi aan la soo xigan amba aan wax laga sheegin sida rasmiga ah cidda wax u bixisay aan la sheegin warqadan xataa aniga warqadahaas la sheegay xataa ma cuskanayso waxay ku tusay marka ku waxaas waarid maba ahaynba maxay gudoomiyaha tala soo jeedintiisuna waxay aaday 2017 bisha shanaad oo anu xilkaba ka tagaba ayay ahayd tala soo jeedintu xilligan wax la baxshana waa 2018 bisha koowaad waa marka tan ay waxaan in la xigtay wax la xiganayo Yuusuf Cali la soo xigtay Madaalo min zaman shaqada ka tagay waa waxa dadka Soomaaliyeed ku wareersan taas ayayna tahay waxa uu soo weydiiyay Universal inay dadka ka daawayso si dadka walaaca ay ku jiro waana ku maasantiin arintaas ayaan rabnaa marka inaan dadka u cadeyno inaan anigu shaqo ku lahayn wax aan baxshan aysan jirin wax siismaana aysan jirin laakiin in qaabka wax loo gudbiyo loo soo gudbiyo inay aaday khalal fanni inuu jiraan malaynaa yani hadda xataa ismali wax ku talagal ah ama Madaalo lagu xumeynaayo ayuu ula jeedaa anigu ismali laakiin waxa laga yaabaa inay kuwan ka qarsoomana laga yaabaa kuwan ka qarsoomay dib isugu laabtaan maamulka ha soo saaraan ha arkaan dadka u gudbiyaan intaas ayaan ugu dhehla والله هذا دوق مقالة هذه واحد لو يديتك دول أو بحشي وحوايد عد شيء كتمجد محايلة واحد وجو دوق مقالة إنه دول بحيه أنت صوب عن شرعين أنت صوب قفان شرعين أنت صوب الله دول جودون أقول حاجة دول كله ذا وأنبحش دول كله ذا قلنا وحنوقع فائدين يا شعب الصومالية ما دام ما قشن قب أي نقطة بدي لورد الحين تجاه كوانك عم بري في جزيرة أنت بقشن وشوا waxaan ugu bedelay dhul 180 boos ah oo sifaynta batroolka gadaasheeda ku yaal ayaan ugu bedelay dawladda hoose isla markaasna 8 boos oo isla goobta dawladda ku taalo in dawladda hoose loo dhiso guriga looga dhiso ayuu heshiiskana xoogay dawladda hoose ayuu yaalaa xafiisyada yaalaa oo laga heli karaa dhulkaasi aan baxshay waxaan ugu bedelay dhul 184 boos ah isla markaana waxaan ku heshiinay in 8 boos loo dhiso dawladda hoose Yuusuf Cali loo dhismaynin cid kale loo dhismaynin dawladda hoose loo dhisay ما لقى فائدة مثلا لقى ما فائدة وحلا ويدينا عدة جدا بس ممكن بقول شيء تفرط بس ما له حفظي ما له هايا ما لقى فائدة سديد بس ما له لسه لما لسه محله لسه واي بدك يقدم بيا لو يدينا لكن أنا وحنا قلت لك قالي إن دولة دوسة نقول الله دوسة أي أب الله ويان بل واحد دولة دوسة إليهين حلينا دم بينا يجران بل إن أبوران ربي غير شيء وآه
waana ugu talagalay ciddii dhisaysan heshiisaan la galnay 8 boosna waan u barnaynay isla markaana 184 boosna waxaan ugu talagalay in qashin weynaha magaalada laga qaado ee la geeyo meel ka fog magaalada isla markaana waxaan heshiis aan kula jirnay warshad qashinka maarayso ee qashinka wax ka soo saar ayuu ay qorshayna iyadoo barnaamijkii socdo ayaa halka qaadis timiday kadibna dadkii ugu dambeeyay ku wareejiyay laakiin sida looga faa'iideystay walaalahay ayaa la weydiinaya aan wax fara ka maayo ma jirto